ilaahay wuxuu ballan qaaday dikrigiisa haddaan badinno dembi dhaaf iyo jannaa la ysu ballan qaaday wax kale aynu raadinayna aakhare waxaan doonayna intaan sooma aakhare waxaa la hiigsanaya janno in la galo waayo jannada in la galana waxaa ka sokaysa dembiga in lagaa dhaafo waayo dembigu waa waxa jannada kaa hortaagan ee naar lagu geli karo waaddaakiriina allaha kaiira waaddaakiraat kuwa in badan ilaahay xuseen rag iyo dumarka acadda allaahu lahum makfiratan dembi dhaaf buu ilaahay u diyaariye u ballan qaaday dembi dhaafku waa ballan wa ajran cadiiman ajri weynoo jannaana waa loo diyaariyey ajri weynoo janno iyo dembi dhaaf dikriga ilaahay baa laga helaa subxaanahu wa tacaala isagaa inaan badinnaa laga helaa saas darteed buu ilaahay ku tilmaamay waladikrullaahi akbar dikriga ilaahay baa ka weyn markii qur'aan akhriska iyo salaaddii laga soo sheekeeyey salaaddii iyo qur'aan akhriskaoo dikrigii ka mida cumuumka dikriga guud oo la daa'imaa ka khayr badan baa ilahi yidhi subxaanahu wa tacaala camal la u khayr badanna waa ka midka joogtada la sameeyo nin baa sidaan dhihi lahayn oo kale nabigu u dacwooday haddaad acmaashii islaamka akhrido kii la soo qaadaba waxaad dhihi kanaynan dhaafinba kii ugu muhiimsanaa waa kan salaadda marka laga sheekeeyo salaadun wad baad isdhihi soon marka laga sheekeeyo soonkuuna ha laguga ogaadaad isdhihi sadaqo marka laga sheekeeyo tan meel loo dhaafo ma leh baad isdhihi markii cilmigiiyo laga sheekeeyo cilmigayba ku dhan tahay baad dhihi markii jihaad laga sheekeeyo isagaa isku fuuqfuuqsaday baad dhihi intii kaleo dhan baababkii baa ku batay kanuu eegaa markaasuu nabigu yidhi rasuulka ilaahayow camaashii islaamka ee wada khayrka badnayd way igu tira badatay meelaan kaga hagaagaan garan waaye makan anna qaybsami waaye acmaashiina wada qaban waaye mid aan mid ugu xishiyo midaan ka tagana garan waaye adigu mid ii door buu yidhi aan ku dheganaadoo janno ku galo fa akhbirnii bicamalin atashabbahu bih wa adkhulu bihi ljanna camalaan ku dhegoo janno ku galo iiga soo dhaxqa buu yidhi ninkaasi ma tala xumayn isagii hadday kaga baahday in dadka intuu dhex mara nabiga uu ka xusho sal ly slam oo yidhaahdo adaan kugu aaminey ii door camal laakiin keligii isuma dhihin annagana wuu noo yidhi su-aashaas isaga keligii isuma weydiine inana waa inoo weydiiyey nabigu hadal kooban buu yidhi oo wuxuu yidhi laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah carabkaaga dikri ilaahi ha ka qoyanaado dikriga ilaahay iyo xusitaankiisa carabkaaga ha ku badato salliga nabiga istikfaarta tasbiixda taxmiidda takbiirta qur'aan aad akhrido ducaad ducaysato dikriga ilaahay carabkaaga yaanu ka qalalin intaasuu nabigu yihi sala allahu alayh ali wasalam dikrigaasuu nabigu mar kala tilmaamay qaybo ka mida oo laba kelimadood buu ka soo qaato o yidhi khafiifataani cala allisaan haqiilataani fi lmiisaan xabiibataani ila araxmaan laba erayoo carabka aada ugu fudud miisaankana aada ugu culus allahna aada u jecel yahay maxay yihiin subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim maanta suuqaad dukaan fadhida ama makhaayad maqal baad fadhidaa intee in leeg baad qof la taagantood hadlaysaa in allaale intaad fadhida haddaad subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim dhahdo gaajoon maysid oo oomi maysid oo xiiqi maysid oo qof kalaa macmiiloo kuu yimid oo wax kaa gatay markaad dhammaysatee dib tan aad ugu soo noqotay kuu diidi mayso waad safri halkanaad ka lugayn meel xaafadda ka midaa tegi intaas waad lugaynaysaa wax ma qoraysid waxna ma akhriyaysid dikriga kuma mashquulsanayd waa isla haasaawaysaa mararka qaarkood dadka iyo geedaha dardariyo telefoon baad ku mashquulsantahay telefoonkaad ku mashquulsantahay jidkaadoo socda laakiin waxaa kari weyday subxaana allah subxaana allah subxana allah inaad tidhaahdo gaari baad wadaabaa laga yaaba waa darawal halkan ilaa Mombaaso gaarisu gaariga cayrinaya wax ma qori karo waxna ma akhri karo intaas mid uu heesaya mid maskaxdiisu laha saawaya waxaad ku mashquulsaneed markaad meel istaagto laa diin walaa duuyo waxaad meel saartay male fayranaad xidhay male shaqooyinaad dhammaysay male dikraad xasuusatayna male haddiiba kuma hurdido maadan seexan oo darawal baad soo gaari baad cayrinaysaa baladadan quraan xataa xifdisanayn inaa subxaana allahi walxamdulilah iyo salliga nabiga iyo istikfaar iska akhrisato wax kuu diiday ma jiree waadan xasuusan
intaad yar xasuusatana ninkii shaydaan ahaa baa kugu soo dhacay waxoogay akhriso markaad dhahdo telefoonka fiiri buu ku leeyahy war waxaan jinnihe jeebka lagu wato ee qur-aan laga akhrisan waayey ee salaad laga tukan la'yahay soo musiibo ma ah